assalaamu calaykum kusoo dhowaada dadaal academy waa wada sheekeysiyadeennii taxanaa ahaa casharkeenii 19aad waxaanu ku saabsanaan doonaa hot dialogue wada sheekaysi kulul between u dhexeeya boy wiil an girl iyo gabadh ayaa hadalkii bilaabay hello haye sister of mine walaashaydiyey how is your situation at the moment waa sidee xaaladaadu hadda hello haye sister of mine walaashaydiyey how is your situation waa sidee xaaladaadu at the moment isla hadda at the moment hadda waa sidee xaaladaadu hadda well way fiican tahay my situation xaaladaydu is 100% is 100% waa boqolkiiba boqol as you see sidaad ka aragtid my physical appearance muuqaal jidheedkayga muuqaalkayga sidaad ka aragtid xaaladaydu way fiican tahay well hagaag ama way fiican tahay my situation xaaladaydu is 100% waa boqolkiiba boqol as you see sidaad ka aragtid my physical appearance muuqaalkayga where are you hurrying halkaad ku degdegaysaa where are you hurrying halkee aad ku degdegaysaa where are you hurrying xageed ku degdegaysaa indeed dhab ahaantii am in hurrying waxaan ku degdegayaa I am in hurrying waxaan ku degdegayaa to my girlfriend saaxiibaday to my girlfriend's house guriga saaxiibaday indeed xaqiiqdii I am in hurrying to my girlfriend's house waxaan ku degdegayaa guriga saaxiibaday why are you going to your girlfriend's house why waayo ama sababtee are you going aada u aadaysaa girlfriend's house guriga saaxiibada sababteedu maxaad ka doonaysaa guriga saaxiibada why are you going maxaad u tegaysaa to your girlfriend's house guriga saaxiibada gabadhii ayaa hadalka qaadatay waxay tidhi brother walaalkayow it is not your business maha shaqadaada to know inaad ogaatid the reason sababta that I am going aan u tagayo sababtaan u tagayo guriga saaxiibaday shaqadaadii maaha so saa daraaddeed take care ka taxadir what are you saying waxaad leedahay ka taxadir waxaad leedahay why are you going to your girlfriend's house maxaad u tegaysaa guriga saaxiibada markaa wiilkii baa yidhi gabadhii ayaa hadalka la wareegtay waxay tiri brother walaalkayo it's not your business maaha ganacsigaaga to know inaad ogaatid the reason sababta that I am going aan u tagayo so saa daraaddeed take care ka taxadir what you are saying waxaad leedahay take care of ka taxadir what you saying waxaad leedahay okay ayuu yidhi sister haye walaashaydiyey as you know sidaad og tahay there are waxaa jira tvs tuug baa jirtaa robberies iyo burcad kuwaasoo always badanaa like jecel to rape inay kubsadaan the girls gabdhaha so saa daraaddeed what do you mind maxaad u malaynaysaa if I go with you what do you mind maxaad ka qabtaa if I go with you haddii aan ku raaco wuxuu yidhi wiilkii okay sister haye walaashaydii
as you know sidaad ogtahay there are thieves waxaa jira tuugyaal tuug baa jirtaa and robberies burcad baa jirtaa who kuwaasoo always badana like jecel to rape inay afduubtaan to rape inay kobsadaan the girls gabdhaha soosaa daraadeed what do you mind maxaad ka qabtaa if I go with you haddii aan ku heliyo ama aan ku raaco b ayaa hadalkii la wareegay to tell you truth that runta loo sheego my brother walaalkaygiyow to tell aan kuu sheego to tell you truth runta aan kuu sheego to tell you truth aan runta kuu sheego my brother walaalkayo I am not as a coward ma ihi nacas I am not as a coward ma ihi nacas as your coward as your sister say walaaladayo kale I am not afraid kama cabsanayo of anyone cidna kama cabsanayo soo daraadeed don't go with me waxba hay raacin soo daraadeed don't go with me waxba hay raacin perfectly xaqiiqdii I have never seen weligay ma aanan arag the girl gabadh who as a brave as you kaa sida geesiyadu too kale oo ah geesiyad maanan arag I have never seen weligay maanan arag a girl gabadh maanan arag who is as brave geesiyada as you sidaad u tahay geesiyad u tahay qof u ah gabadh u ah weligay maanan arag soo saara daraadeed whom are you relying upon who soo saara daraadeed whom are you relying upon yaad isku halaynaysaa if I ask about haddaan kuu sheego if I speak haddii aan ka hadlo if I speak about haddaan ka hadlo the reality xaqiiqdii all my brothers walaaladay oo dhani and cousins iyo ilmaadeeraday are still alive maxaad ka hadlaysaa marka walaaladay iyo ilmaadeeraday ayaa weli nool I am not relying about them I am relying about them iyagaan isku halaynaya I am relying about them iyagaan isku halaynaya go on your way ka soco and shall we see waan arki doonaa what your brothers do waxay walaalada ku qabtaan marka waa qof dee cidlo isku halaynayo walaaladii waa isku halaynaya oo kale marka wiilku wuxuu yidhi ka soco bal dee waxaad walaalada ay ku qabtaan I can't tolerate maanan arag I can't tolerate uma dul qaadan karo of your fabish tolkien hadalkaagan wasakda ama xun soo daraadeed leave alone iga tag ii banee ka wareego casharkeenii maanta intaasuu ku eegyahay intaan cashar kale aan ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo